السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة سومالان يوم الإسلام كي وايد السلام يا ميركز تأجوك تنبأ waxaan doonayaa inaan wax yar ka idhaahdo in fideoyo iyo hadal la wareejinayo oo nin ka soo yaray nin la yiraahdo Axmed Ismaaciil Samater oo le macnii Somaliland ma heli doonto aqoonsi maxaan ku dhahay waxyaabo badan ka hadlay oo ay ka mid tahay baahida iyo gaajada ka jirta Somaliland wax noocaas ah buu ka hadlay iyo aqoonsiga taasaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo horta wuxuu yidhi Somaliland haddii sida uu asagu sheegay lacag fara badan aan la gelin oo siduu sheegay 10 milyan oo dollar haddii macni waxyaabo badan aan la samaynin oo ay ka mid tahay inaan macni lala hortagin un caalamka Ethiopia Soomaaliya ayaa naxasuuqday iyo maxaan ku leeyahay dawladii siyaad bare waxyaabahaas wax kale oo ka duwan la keeno horta anigu sida aan fahansanay Somaliland warkeedu waa cad yahay waxay Soomaaliya ku kala duwan yihiin hore waa loo akhriyay waxa ka mid ahayd macni qudbad uu jeediyay madaxweynaha maanta jooga Muuse Biixi meelo badan bay si qayaxan ugu qoran tahay oo waa macni waxa aynu kaga duwanahay iyo waxa sababta keentay inaynu ka goonaaba way iska cad yihiin ma garanayo anigu horta runta marka laga hadlo wuxuu ku dari lahaa ma fahmin laakiin macni haddii aanu lahayn wixii intii saxda ahayd macni waxa sax ah ee lagu dari lahaa maxay tahay Soomaaliya waa ognay inaynu laba wadan kala ahayn waqtigii aynu maxaan ku idhaahdayay isku darsanay sababihii aynu isugu darsanay khasaarihii inaga soo gaaray isku darsigii macni wax sidaasoo kale oo macni la sheegi karo oon dee ahayn inaynu laba wadan oo isku darsaday ahayn ka bacdigina ku darsigii ay dhibinaga soo gaadhay oonu sida aawadeed uga baxayno inaynaan ahayn dee dad macni siyaasiyan isla keeni kara dee intaasi waa qorantay dhibaatadii ina soo gaadhay oo dad badan yidhaahdaan yaan laga hadlina waa muhiim waana taariikh ummadan soo martay waxaanay ka mid ahayd waxyaabihii sii xoojiyey gooni isutaagga Somaliland ilaa gooni isutaagga Somaliland maxaan ku dhahday dagaalkii ka horba dad baa isku dayay oo hore ayuu u jiray in la macnihii dagaalkii iyo gooni isutaaggan iyo waxanba dhib baa keentay ka horeysay dagaalkii taasina waxaan aaminsanayaa inay qoran tahay oo macni waxyaabaha lagu doodo ay ka mid tahay xasuuq dad loo geystay iyo dhaawac iyo dhibaatana macni wax ka weyn oo lagu doodi lahaa ma jirto marka eeg gooni isutaag waxa jira wadamo kala go'ay ayadoon dagaal weyn iyo dhib weynba aanay soo kala gaadhin laakiin sababta ay ku kala go'een inay tahay oo isku diina oo isku midaba oo isku luuqada laakiin kala go'ay sababta ay u kala go'een waliba hore isugu jiray sababta ay u kala go'een wuxuu bay ahayd macnaheedu interesihii dadkaasi lahaayeen iyo kuwii marka awoodda xooggeeda la wareegay oo iskeeni waayay waana ta inaguba aynu kaga goonay marka macnihii ma inaan weli laga guul gaadhin laakiin dad isbeeshila oo meel ka imanaya oo cirka ka soo dhacaya oo qaadi lahaa ma jirto dabcan waa in asagu macnaha anigu sidaan u fahmay wuxuu doonay in qabiil lagu saleeyo dadka ictiraaf raadinta in qabiil lagu sareeyo reerba in laga soo qaado laakiin taas anigu waxaan u arkay inay khalad ku tahay asagoo aqoonyahana oo aqoonyahan sheeganaya taas inay khalad ku tahay baan u arkaa ictiraaf raadinta Somaliland in reero lagu saleeyo laakiin in aqoonyahana lagu saleeyo waa muhiim weeye laakiin dad baa ku dooday intaasoo isaaqa baa wada socday
intaasoo isaaqa ha ahaadaan, intaasoo samaroona ha ahaadaan, intaasoo daarooda ha ahaadaan. muhiimaddu waxay tahay inay ahaadaan dad aqoon-yahaniina kana go-an tahay gooniisutaagga Somaliland. marka markastoon dhagaysto anigu waxaan u fahmaa axmed ismaaciil inuu doonayo in wax kasta qabiil iyo jufooyinka lagu saleeyo oo macniintaasoo macni asagu wuxuu diidan yahay sidaan anigu fahansanahay meesha ictiraaf raadinta reeruhu ma dhamiyo wax noocaasa. يعني reer walba waa leeyahay aqoon-yahano reer walba waa ku jiraan aqoon-yahano markaa dee haddii la leeyahay qabiil ha lagu saleeyo oo uu iska leeyahay uu asagu odhanayo dee qabiil ha lagu saleeyo waa meesheed. laakiin aqoon-yahano iyo dad macnihii siyaasadda caalamka u dhuun daloola iyo kuwa taariikhda Somaliland iyo Soomaaliya u dhuun daloola wax dhaafsan ma arki karo. sidaan deynta aan ogeyna dad badan oo aqoon-yahaniina ayaa ku jiray ictiraaf raadintaas iyo dadkii macnihii u qaabilsanaa Somaliland ictiraaf raadinta. marka hadduu leeyahay dadka waxbaa ka dhiman oo waxbaa hoos maray wax noocaasa waa okay, laakiin anuu sidaan u fahmay hadday tahay qabiil ha lagu saleeyo waa wax qaldan weeye. ta kaloon arkay waxa weeye isagoo mar leh ayaan arkay reer Somaliland oo yaan siyaasiyiintiinu been idin sheegin aqoonsi la'aan ma jiraysaan oo dal ma ahaanaysaa. taana waxaan u arkaa inay khalatay Somaliland hadda bay jirtay dal tahay weliba aanay jirinuune ay wadamo badan oo macnihii haysta aqoonsi haysta ay ka horumarsan tahay ay ka nabadgelyo badan tahay oo ay siyaabo badan oo loo eegoba ay uga fiicantay. waxa kaloo warkiisa ku jira inay meesha gaajo ka jirto baahi fara badani taalo orda waxoogaa dadta waxbaa ka jira laakiin afrikaan kala midnahay wadamada jaarkan weliba qaar badani noo soo shaqo tagaan. Ethiopia waa wadan inaga badan awood ilaahay baa leh inaga badan inaga guusan inaga dhaqaale badan haddana dadkeedii baa inoo soo shaqo tagaan. in war aan dhagaysanayay maalin dhaweytoo kale waxaa la sheegay inay ugu yaraan 8,000 oo Kenyaati Somaliland ka shaqeeyaan. marka ma dad gaajoonayo dama baa loo soo shaqo tagaa ani bisaaradii inay jirto iyo dad baahan inay jiraan oo anigu shakhsiyan waliba aaminsanay dadka qaar badan oo kamidi inay daysla weynaantooda iyo kibirkoodu keenay sababtoo ahay gawaadhida Somaliland waxa maydha caruur ajnabiya beeraha Somaliland waxa waardiyay guryaha ka dad ajnabiya wadan kasto caalamka joogtiyo meel kasto joogto dad baahan baa jira halkan aan joogno dad baahan baa jira taasi dhamaan mayso laakiin waa inay majority-ga dadku macnihii ay meel dhexdhexaad oo caadi ah ay ku nool yihiin. marka taaqudheedana khalad buu ayuu ku jiraayo gaaja jirta dee og reer waan fahmi karaayo xogaa dee ololeyn baa ku jirta laakiin Somaliland ma aha meel la odhan karo waa meel dadku mijayaryar yihiin waa la baktiyay. of course waa iska jirtaa bisaaradii laakiin dee mijayaraantan uu ka hadlayo xamar rag u jeeday dumarka uu jeeday sababtoo dee faarax luga yarab yahay wixii la odhan jiray. marka taas anuu ma arko xaalada afrikaanka oo dhammi especially ragga afrikaanku majority-goodu waa dad dhuuban weliba geeska Afrika dadka majority-goodu waa rag dhuuban. marka gaajo macni waa ka jirtaa Somaliland bisaaradii waa ka jirtaa in wax laga qabtana way tahay laakiin la xadka uu isagu sheegayay waxba uga ma jiraan. tan uu leeyahay ictiraafka anigu waxaan aaminsanay oo mar horena uu yiri Somaliland ma jiri karto ictiraaf la'aan waxba kama jiraan. dadka shacabka reer Somaliland iyo ummadda reer Somaliland waxa ha u qaadanina niyad jab iyaan la idinku ridin. hadda isbaaldhig Somaliland haddii aad tahay isbaaldhig dadka kula jaarka ah iyo Somaliland isbaaldhig. Soomaaliya waa wadan la aqoonsan yahay maxay inagu dhaantaa miyay inaga hoosaysaa mise wayna dhaantaa anu waxaan aaminsan way inaga hoosaysaa. Eritrea waa wadan la aqoonsan yahay miyay inaga hooseeya mise waa inala mid. Djibouti waa wadan la aqoonsan yahay maya inala mid baa mise waa inaga hoos way ka hooseynaa maya
wadamada geeska Afrika ku jira kuwa ugu ladan baynu ku jirnaa ugu wanaagsan baynu ku jirnaa nabadgelyo ahaan kuwa ugu wanaagsan baynu ku jirnaa dhaqaale ahaanna kuwa ugu wanaagsan baynu ku jirnaa marka Somaliland xiita hadii aan la aqoonsan ku gasane soo socda waxay ku xidhan tahay oo kaliya dadkeedu sida ay ayagu isu aqoonsan yihiin sida ay isu maamulaan iyo kala dambeynta iyo nabadgelyada ay haystaan Somaliland waa wadan ilaahay siiyay dhul la beeri karo waa wadan ilaahay siiyay xoolo waa wadan ilaahay siiyay bad waxaan aaminsanay xitaa hadduu caalamku albaabada ka soo xidho hadday ayagu macni sida saxda u shaqaystaan inaanay gaajo arkaynin way waxaad samayn kartaa xoolo tamuuxa ka badan oo horena u lahayd imakana leedahay waxaad samayn kartaa maxaan ku idhaahdaa beero waxaad samayn kartaa kalluumaysato marka Somaliland madadku inay tabci waayaan mise gaajo kale hadday tabci waayaan iyaga u taalaa qof ilaahay dhulku abuuray noocaasa oo ka gaajoonaya asagay wax ka khaldan yihiin arsaaqada ilaahayna de ilaahay bay tahay ilaahayna waa meesheedii laakiin ma aaminsani inay gaajo ka jirto tan aqoonsiga Somaliland waxaan leeyahay 1000 sano oo dambe hadii aan la aqoonsanayn Somaliland halkeedaasay taagnaan doontaa shacabkeeduna taasay go'aansadeen taasaanay ku soconaysaa wadamo badan oo aan la aqoonsanayn baa dunida jooga kuwa la aqoonsayna ka dhaqaale badan ka aqoon badan ka caafimaad badan waxa la rabaa in siyaasad sax iyo bulsho ayadu rabto inay dalkeeda iyo dadkeeda wuxuu qabato Somaliland waxa u soo kacaya intaas oo kun oo dhalinyaro ah oo debadaha wax ku soo baranaya oo aqoon yahana ah oo maxaan ku dhahay caalamka iyo dhulka ay joogan deyn ka soo qaadan karo dhulkooda ku horumarin kara maaha maanta lama joogo waqtigii hal nin umada aqoon-yahan u ahaanayay kumanaan aqoon-yahan baa kaca gudihii ka kaco dabadii ka kaca wuxuu aad u dhaliilayay oo kale waxbarashada iyo aqoonta Somaliland aniguba waa aaminsanay tayo xumo jirto laakiin de wadamada caalamka oo dhan waa sidaas oo marmarba waa la qiyaasa hadda anaga wadanka iyagu kale aqoonta hoos bay u dhacday ilaa iyo intii caruuraha la siiyay daatooyin maxaa la yiraahdaa kombiyuutarada ay ku shaqeeyaan iskuulka loogu talagalay inay ku shaqeeyaan laakiin taas waxay keentay dhibaato hadda halkii hore iyo buugaagtii baa lagu noqonaya inay buugaag yeeshaan dadka reer Somaliland waa sax anigu waxaan aaminsanay khalad maaha in la yiraahdo aqoonta hoos bay u taalaa laakiin waa in kor loo soo kiciyaa of course hadii maaragtay ay dhaliiri jirto xagga aqoonta anigu waa aaminsanay inay dhaliiri jirto laakiin dhaliil umada kale iyo dalka kale wadankan aan joogno dadka ku soo bartay wadankii iyo kuwa halkan aan joogno wax weyn oo u dhaxeeya haba yaraatee ma jirto waxyaabaha